marka dalka Suudaan aynu si gaar ah u dul istaagno tarsano waxa rabaa inaan saddex qaybood ka eego marka koowaad Suudaan iyo dadka muwaadiniinta wadankaas u dhashay ciida sida ay ula falgaleen marka labaadna waxa rabaa inaan ka eego dadka shacabka ah aan u dhalan wadanka Suudaan ee ku sugan shaka warqabka Suudaan waxa ku sugan ajaanib fara badan ajaanibtaasna intooda fara badan waxay u yimaadaan waxbarasho Suudaan wuxuu ka mid yahay wadamada Carabta meelaha ugu badan ee waxbarashada loo tago annaga Soomaali markaan gaar ahaan waxa ka warqabtaa wadanka ardada u badan ee naga jiraan waa dalka Suudaan Suudaaniyiintu Soomaalidu way soo garab istaageen burburkii dawladda Soomaaliya markay dhacday 1991kii Suudaantu waxay yiraahdeen Soomaalidu waa inaan caawinaa haddana waxay yiraahdeen waa inaan ku caawinaa Soomaalida in iyaga ay wax barno si iyaga ay wax u qabsadaan oo dalkooda ay wax u taraan marka ajaanibtaas tirada badan ee meesha ku sugan iyo saameynta ku yeelatay waa meesha labaad arba inaan ka fiiriyo meesha saddexaad ugu dambeysay ee arba inaan ka fiirino waxay tahay iyaga naftirkooda xaalad colaadeed maadaama ay ku jiraan inta badan Soomaalida waxa ka wada dadka muslimiinta ah madaahibtoodana way kala duwan tahay mararka qaarna xarakaad kala duwan jiro salafiya suufiya waxyaabo noocaas oo kala way isku khilaafaan maalmaha ciida iyadana wax khilaaf ma ka dhac saddex qayb inaan ka eegna rabaa marka koowaad ku bilaabo ajaanib iyo dadka u dhashay Suudaanta dhamaantood aad waxa ugu adkaatay inay ciidaan Suudaan masaajidda lagu dukan jirin markii hore maalinta ciida barxadaha waaweyn la isugu imaan jiray samaacada waaweyn inta lagu xiro mikrafoon lagu xiro ama shaayqad halkaas ay ku dukan jireen laakiin dagaaladii aad iyo aad laakiin dagaaladii dhacay laba ciidan oo awood leh oo ciidamadii ugu badnaa ee Suudaanta maadaama ay dagaalamayaan waa militariga Suudaan iyo ciidamada dacmo sariic la yiraahdo hadii af Soomaaliya aynu ka dhigno waa gurmadka degdega ciidamada gurmadka degdega la yiraahdo laba hoggaan way kala hayeen markoodii hore dagaalkoodii waxa uu sababay in ay suuragal weyso in isku imaatin uu dhaco ilaa meelo yar oo qariib ma ahane dagaalka kama socdo caasimadda Khartoum oo kaliya ee gobolada qaar uu ka socdaa si gaar ah wuxuu say caasimadda Khartoum shalay waxay ku ciiday xabad iyo dagaal shalay iyadoo maalin ciid ay tahay maalinta koowaad Ciidul Fitr al-Mubarak ay tahay haddana waxa ka socday dagaal u dhaxeeya labada dhinac iyadoo waawaan iyo xaalado kale ay socdaan taas waxay sababtay qofka inuu ku fikirinba sidee ku ciida ee qof walba uu ku fikirayo naftaada si ula baxsataa si ku noolaataa Soomaalida iyo ajaanibta kale ku sugan hada u soo laabto iyaga xaaladoodu way ka duwaneed xaaladda oo shacabka Suudaan sababtoo ah ajaanibtu waa ay ka baqdin ama cabsi badan yihiin dadka kale marka dagaal uu ka dhaco meesha ay ku sugan yihiin dadka muwaadiniintu way ka cabsi badan yihiin taas waxay sababtay ardaydii jaamacadaha dhigan jiray jaamacad Afriqiya Caalamiga oo ajaanibtu ugu badan ay dhigtaan oo kale ajaanibta intii aan la bixin oo wadanka aan ka bixin ama gobolada aan u cararin waxay ku sugnaayeen jaamacadda hostingkeeda ama daaqiliyadeeda meel deegaan oo ay ugu talagashay ardayda inay deegaan jaamacadda waxa ardayda u soo gashay in ay si wada jir u dukadaan salaada ciida laakiin ciid kale oo salaada inay dukadaan ka baxsan in la labisto in la isku hambareeyo in xalwo iyo biskud la wadaago in la soo dalxiiso waxyaabahaas oo dhan meesha way ka baxeen dhiig iyo dhimasho ay reer Suudaan ku ciideen xaalad adagna way ahayd qodobka ugu dambeeyay eego oo khilaafka ku saabsan wax badan isku day ina khilaaf hadii uu jiro oo cid aan soomayso aan ciidan ay jirto taasina maysan suuragelin oo waxa moodaa in go'aanka dawladda ay u hoggaansameen dhamaan dhinacyada cid si rasmi ah u shaacisay in maalin ciida aysan ahayn ma jirto oo waa la wada ciiday iyadoo aan lisku hambaliyeen iyadoo aan xalwad la cunin iyadoo aan lisku iman qof walba wuxuu ku ciiday meeshii uu ku sugnaa Soomaalida ku sugan Suudaanna dadkaasi waxay ahaayeen iyagu kuwa fikradooda dhan ay ku kooban tahay sidee uga baxsanaa Khartoum gaar ahaan dadkii Khartoum ku sugnaa ilaa iyo 40 iyo dhowr qof oo ardayda kamid ah oo gawaari gaar kireystay oo safraayay si dib leh ayay uga baxsadeen magaaladii dhanka iyo Qadaarif oo soo xigta dhanka xuduudda Itoobiya ee la wadaagto Suudaan ayay u soo safreen qaar kalena waxay u safreen Jazeera oo ah gobolka ku dhagan caasimadda Khartoum ee dalka Suudaan si ay markaas u helaan meel ay markaas ku fikiri karaan sida dalka ay uga soo bixi lahaayeen waa hadii dalka ay ka baxayaan oo xaaladda waawaanta socotay isbedesho marka guud ahaan caalamul islaami waa laga ciiday marka laga reebo Suudaan oo xabad iyo dagaal darteed u ciidi weysay